Barasaabka gobolka Awdal ayaa maanta booqday xerada Goroya Cawle aagga galbeed ee ciidanka qaranka Soomaaliland oo u diyaar garoobaya xuska maalinta qarannimada Soomaaliland ee 18 May. Ciidanka ayaa ku guda jiray dhoolatus ay ku soo bandhigayaan gaarka ciyaar ay kaga qayb qaadan doonaan xuska sanad guurada 33aad oo ku beegan markii ay Soomaaliland dib ula soo noqotay madax bannaanideeda 18 May 1991. taliyaha aagga galbeed ee ciidanka qaranka Soomaaliland gaashaanle sare Maxamuud Axmed Yabaal oo soo dhaweeyay barasaabka ayaa sidoo kale warbixin guud ka siiyay diyaar garowga ciidanku ay ugu jiraan weynaynta maalintaasi qaran. waxaan halkan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha gobolka Awdal Xasan Ciid iyo wafdiga uu hogaaminayo ee nagu soo booqday xerada Goroya Cawle ciidanka qaranka ee aagga galbeed innaga oo u diyaar garoobayna sanad guurada May 18 May inuu nagala soo qayb galo tababarka iyo gaardiga iyo dhoolatuska aynu samaynayno kaasoo ay ku farxayaan muwaadiniinta reer Soomaaliland cadawgeennuna uu ka naxayo waxaad diyaar u tihiin oon idiin carbinaynaa hadday maamul gobol tahay iyo hadday degmo tahay iyo haddaan saraakiisha aagga nahayba innagoo isku duuban inaynu waddankeenna difaacanno cadowga aynu iska hiro ka gudaha iyo ka dabaddaba waar diyaar ma tihiin waxaan markhaati ka ahaa idinkuna markhaati ka tihiin taliyaha ciidanka qaranka sareeye gaas nuux ismaaciil taani inuu taakulayn joogtaa hiil iyo hoo wax alla waxaynu weydiinno markiiba miisku inoo soo dhigay. intaa kadib waxaa madashaasi hadalka qaatay barasaabka gobolka Awdal Xasan Daahir Xaji Xasan Ciid waxaana uu mahadnaqay saraakiisha aagga galbeed iyo sidoo kale ciidamada ku jira xaruntani. farxad weyn bay tahay inaan maanta soo booqdo dugsiga tababarka ee Goroya Cawle iyo ciidanka rigliga ee yaala ee uu yahay taliska aagga galbeed. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sharaf weyn bay noo tahay ka xukuumad ahaan. mahadda koobaad ilaahay baa leh mahadda labaadna waxaa leh saraakiisha oo koow ka yahay taliyaha aagga galbeed ee gobolka Awdal ee halkan iyo saraakiil ku-xigeenkiisa ee saraakiisha iyo dableyduba sida ay ugu heelan yihiin difaaca qaranka. waxaan xusuus mudan sida madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo taliyaha ciidanku ay ugu heelan yihiin ay taakulaynta ula daba joogaan ciidanka qaranku si ay u difaacaan qarankooda. waa wax ilaahay loogu mahadiyo. waxay nagu soo fool leh oon maanta u diyaar galoobaynay tijaabadeedii 18 May maalintii qarannimada Soomaaliland. dardaaran iyo tusaaleyn horay baad saraakiishiina uga qabteen anna waxaan nigu darayaa in la weyneeyo maalinta qarannimada Soomaaliland 18 May. maalinta waa in dhulku gariiro haddii aan la idhaaho waa in cadowgeenu naxo meel kasta laga dareemo qarannimadu waa waxaan nabadda ku haysanno oo waxaan Soomaali inteeda kale iyo adduunkaba kaga fiicanna nabad difaaca qaranka iyo nabadgelyada inaga sugay qarankiina aad u dhimanaysaan ifi aakhirana ilaahay waxaan niga baraynaa jasaakallahu khayr ilaahay miisaanka xasanaadka inagu daro wixii inkaamiyada inaga dhimanna gobol ahaan waan buuxinaynaa insha Allah wixii dhismo aan ku dari karna xaruntana aad baan u dadaalaynaa waan haddii alla yiraahdo wixii
wax qabaala dib u dhigan mayno wixii aan ku darsan karaynaa qaranka ku darayna ciidanka waan jecelahay oo waxa nabadda lagu yahay oo wax xamaas ku seexato وعبسلان بشير فرح عبسلان ساها وربهين تقرن كسوماليلاند مقالة بورما